الشباب waxay la wadaagan macaliminta manhaj loogu talagalay dadka waxbarashada baranaya qaybta loo yaqaano dugsiga hoose ama asaasiga qayb ay ugu talagaleen in lagu marin habaabiyo dhalinyarada ama ardayda wax baranaysa manhaj loogu talagalay in laga dhaqan geliyo iskuulada dalka gaar ahaan maamulka gobolka taas oo ay ka hadleen kadibna ananka waxaan sameynay ka hortag aan sameynayno in manhajtaas qaldan aysan gelin magaalada nasiib wanaag macalimiintu maysan aqbalin manhajkaas inay soo qaadaan laakiin waa lagala hadlay waa jirtaa in lagala soo hadlay laakiin ayaguna ma soo qaadin manhajkaas waxaana noo cadaatay in manhajta ay aqbali waayeen maadaama aysan al-shabaab haysan goobahan oo meel dowladu ka talisay tahay marka macalimiinta adinku qabateen ama xidheen waa ilaa imisa macalimiintu waxa waaye ilaa 7 iskuul 7 maamulo laakiin xarig gaara ma jiro waxa waaye waa la wareystay waxaana laga wareystay wixii sababihii wixii dhacay al-shabaab dhexmaray waxaana jiro ilaa hadda baaris socoto oo la xiriirto arrintaas oo laga wareysanayo wixii dhacay isay u dhaceen iyo waxyaabihii la xiriiray laakiin ilaa hadda ma jirto wax xadguduba dhan walba ah laakiin maadaama aan mas'uul ka nahay dadkan iyo masiirkooda hawshaan ay tahay hawl saameyn ama taabasho ku leh ummadda ama generationka soo koraya wax lala damacsan yahay ay jiraan inaan ka hortagno ayaan ula kulanno hawshaas saasayna ahayd waa gartay marka ilaa hadda baadhista ku wadaano idinkaa gacanta ku haya macalimiinta intaad xogti ka helaysaan saasaan u fahmay hadalkaaga waxa waaye ilaa hadda baadhistaa socoto wax hadda dhib ama caqabad ama xarig caadiyana ma jiro dadkii waa dad oo maamulo ah oo dalada ah way ka duwan yihiin qof al-shabaab u yeeray oo iska caadiya oo iska socoto waxa waaye iskuulada dalka ku yaala dhammaantood aasaaskooda in lala wareegaa la doonayay anakana si ka hortaga ayaan hawshaas inaan isaga wareegsano isula joogna nuxurka al-shabaab xilligan ay doonayso ee ku dhiirigeliyey in ay nidaam waxbarasho soo bandhigaan muxuu yahay maxaa idinka soo baxay idinka waxaa nooga soo baxday inay rabaan dadka soo koraayo inay dad ku lahaadaan dadna ku dhex abuurtaan inay sameeyaan sidaa darteed waa sababta aan anaka u aragnay in laga hortago laguna dadaalo sidii aysan u dhicin dadkan inaan si kale ama gacan kale aysan maamulin ha ahaato oo aan ahayn gacan ummad Soomaaliya cidda u yeedhay marka waa ayo cidda macalimiintan u yeedhay intay magaalada uga yeedhay kulanka la qaadatay waxaan waa al-shabaab macnaha al-shabaab waaye waad ogtahay waxna waa iska farsamo oo arrimo shaqada ananka aan leenahay iyo hay-adaheena gaarka ah shaqadooda ah oo farta in lagu fiiqay isaga baahno saas waa waxaan noo qaas ah laakiin cidda u yeerta guud ahaan waa al-shabaab waan gartay marka doonaya oo markaas sababta ay ugu yeereen ay tahay in manhajta iskuulada Soomaaliya lagu dhigo ay wax ku lahaadaan doonaya si dadka soo baxaya qaar kamid ay u lahaadaan marka manhajkani muxuu dhigayaa muxuu kaga duwan yahay kan haatan la dhigo goobaha kala duwan lagu dhigo manhajkan waxa ku jirto waxyaabo yaryar oo dadkii maadaama ay da'yar yihiin dhalinyaro yihiin lagu marin habaabi karo oo waxyaabo tadarruf ah oo Ismaaciil oo aad ogtahay adigaba waa dareemi kartaa manhaj waxbarasho oo aan ahayn tarbiya islaamiya oo aan ahayn juqraafi oo aan ahayn taariikh waa dareemi kartaa waxa ilmaha laga doonayo waa inay ahaadaan dad naftood horoyaala balaayo u taagan dadaa meesha laga soo abuura waa marka manhajka hadda noocaas iyo mutadarrifnimo oo saas loo tababarnayo marka idinku ma aragteen nuqul ka mida ma aragteen macnaha mise wixii laydin sheegunba ku go'aan qaadateen xirfadeena waa ka warqab waxaan u malaynaa qofka alla hadlaysa inuu qof ciidan yahay waa ogtahay qof shaqadiisa tahay inuu yahay waa ogtahay nuquladan horeyna waa loo arkay waa lahaayaa xafiismanka ama haddaad imaado in waxaa laga yaabaa nuqulo lagaa tuso howlahaas waxa waaye waa howlo la og yahay oo loogu talagalay in dad lagu maran habaabiyo oo ka duwan waxbarashadii la yaqaanay oo ka duwan oo nooc kala waay amniga macalimiinta iyo iskuulada iyo ardayda sidee baa u sugi karaysan dad badan bay isweydiinayaan in arrintaas qudheeda ay cabsi hor le tahay waxaa ananka waajibka aan leenahay waxa waaye inaan la socono waxa dalka ka jiro oo socdo xil inaan ka keeni karno ka hortag inaan ka keeni karno her iyo habeen inaan u taagnaa karno waajibka khaaska ananka noo ah aan u taaganahay micnaheedu ma ahan inaan ananka macalimiin cadaadino inaan meel ku laabino inaan dhib ka haysano kalsooni iyadoo jirtaa wax kasta isweydiin anaka sideedaba ma jirto waxaa la raadinayo bataatan waxaa jirto keliya inaan waajibkii qaran ee dowladnimo ama ka hay-ad ahaan aan ku taaganahay xaqna aan uleenahay inaan waxaan ogaano taasna waa mid aan mar walba u taaganahay mar walba iyo xilli walba iyo wixii soo kordhana inaan anaka aan la socono taliyaha nabad sugidda ee gobolka Shabeellada Dhexe Cabdiqaadir Cabdullaahi